jaraad waxaan u qabtay inaan uga hadlo warbixin yar oo kooban oo ku saabsan bandowgii magaalooyinka Puntland amarkii uu madaxweynuhu bixiyay oo ahaa ka bilaabanayay 6 maqribnimo ilaa 5 aroornimo waxaa bilow ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin si fiican buu u bilowday si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobolada Puntland oo dhan waa ka hirgalay shaqaduna way socotaa wax dhib iyadoo aan lahayn dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamirtii qaatay dawladda muddadaasna waxa la rabaa mar walba in sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga tala galo waliba inkastoo maanta ay jireen dad badan oo raashimo ku tala galay dad badan oo yacni ku tala galay ay jirto hadda ka bacdi in qofku ku tala galo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ahna way furan yihiin isbitaalada wariyaasha waa socon karaan iyagana habeenkii marka ay wax askarta ciidankana waa u sheegaya inay wariyaashu ay mari karaan ay duubi karaan magaalada ay arki karaan sidoo kale dadka xildhibaanada odayaasha dadka mas'uuliyiinta dawladda oo dhan way mari karaan waa indhaynayaan waa la marayaa maaha waxa la diidan yahay waa baabuurtaas beelada iyo laakiin baabuurta kalena way xadidan yihiin laakiin dadka intii shaqo ku jirta shaqada way wadayaan gudiyaal baa jira shaqaynaya gudiyaasha shaqaynaya wariyaasha qaar baa ka mid ah qaar kale oo war doonaya jira oo warka fidinaya dhammaanba insha Allah waa u sahlaynaa cid kasta cidii shaqalana waa u sahlaynaa in loo sahlaa la rabaa shaqadeeda aad baan u mahadsantihiin dadweynahana waa uga mahadcelinayaan siday u shaqeeyeen oo amarkii u qaateen ciidankuna waa u mahadcelinayaan siday shaqadii u qabteen meel walba magaalooyinka waaweyn oo dhan degmooyinka kulli waana in loo hoggaansamaa awaamiirta oo loo hoggaansamaa qaanuunka madaxdu waxay fartay loo hoggaansamaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu